dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inaan la aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada Jubbaland. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa go'aan xasaasi ah ka soo saartay doorashada Jubbaland ee la filayo in dhawaan ay ka dhacdo magaalo xeebteedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. War ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay inay weli jirto cabasho ka imaanaysa beelaha Jubbaland iyo musharaxiintooda, loona baahan yahay in xal rasmi ah laga gaaro tabashooyinka ka hor inta aan doorashada la qaban. sidoo kale wasaaradda ayaa 3 qodob hordhigtay madaxda dowlad goboleedka Jubbaland kuwaasi oo kala ah: 1. in liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulaya la waafajiyo diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. 2. in marka hore la dhameystiro soo xulidda xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka Jubbaland, kadibna baarlamaanka cusub iska dhex doorto guddiga doorashooyinka, guddoonka golaha wakiilada iyo madaxweynaha Jubbaland. 3. in doorashadu ay ku dhacdo hannaan daahfuran oo xor iyo xalaal ah. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale shaacisay inaysan aqoonsan doonin doorasho baalmarsan qodobadaasi. Ugu dambeyn, waxay wasaaraddu ugu baaqday reer Jubbaland midnimo iyo horumar in laga wada shaqeeyo xoojinta nabadgelyada. Doorashada maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa in la qabto 24 bishan, iyadoo weli caqabado ka taagan yihiin magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo ah halka ay doorashadu ka dhici doonto. Ha iloobina inaad channelkeena Shumac Media subscribe tiraahdaan si aad ula socotaan wararkii ugu dambeeyay ee gudaha Soomaaliya iyo caalamka.